أمسناهي شعب الصومالي إن يكون قناعسين دولة النبض ينور حقيقة واي إن يكون قناعسين بقول كي بقول أو تغيير بحذا عاد كيسان أو عاد فهم سنتهين إن النصيب ويالتين إن الوادي كان شعب كاس أمانة وهيسان سي حنكورا هذا وفنه عاد هوشين وقصوا بحذان تاسنا هنتي وحنكو أمانة يا رئيس وزراء ورنتي سو موجي leadership قلها دحديس موجي leadership maxaa yeelay waxa weeye waxaan ku heshiin aniga isaga xaqiiqatan oo marxaati ka tihiin in dalkan muddada dheer burburay inaan u istaagno idinkana garab yaa u noqoteen oo runtii waa fuliseen awaamirtiis aad iyo aad ku mahadcelinaya waxa intaas dheer oo afarta tobta ah aad sheegteen aan ku darin lahaa aniga oo muhiim ah waliba waqtiga hadda aan ku jirno tobta siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad regionka aan ku noolnahay oo Horn of Africa ah isbedel weyn yaa ka dhacay sidaan ula jaan qaadi lahayn sida anaga waxaan haysano aan miis ku soo saari lahayn sidii aan u raadin karno kuwa kale waxaa la socotaa arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd iyada nafteeda waxay u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo ay maskaxda shiilaan ay ka soo saaraan ma aha maanta waxaan qabanayno 5 sano soo socota xagee joognaa yaa naga maqan dawladihii kale yaan ka raadinaa taageero inkastoo aan ku guuleysana hadda oo aan aaminsanahay aan idinku ammaanay maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yiraahda iyagoona ka fiirin maslaxadooda iyo dantooda ka fiirin annaga maslaxadeena kow noo ah kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect ixtiraam uu ku jiro laakiin aynan is oran waa burburteen dhulka taalaan isii dhiiba annagu Soomaali saas uma sameysnin dadka Soomaalida asaas uma sameysna haddii dad khalad naga fahmayna khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdii la soo kacno aysan ahayn ay tahay waxa dalkan iyo dadkan dantu u ah maxaa yeelay iyaga naftooda danahooda ka shaqaysanayaan markay ku imaanayaan waxay ku sheeganayaan danahooda marka haddaadan adiga danahaagii annagoo maalayna ummadda Soomaaliyeed aynan danaheena ka hadlin haddee maslaxadda ummadeenna ma hayno maslaxad shakhsi ahna ma aaminsanin qof halkan fadhiyo inuu aan isugu nimid waxaan isugu nimid ummadda inaga sugaysaa inaan maslaxadda guud aan uga shaqeyno ummadda Soomaaliyeed arinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlay oo qaybta ka ah arrimaha bulshada isxilqaan waa arrin aad iyo aad u muhiimsan aad iyo aad muhiim u ah annagu dhaqaale ma hayno dawladaha qaniga ah oo dhaqaalaha haysta oo noo maxaan ku raahdaa garbaxayana ma hayno oo leh dalkan waa burburay hadhow 30 sano 20 sano wixii aad kala heli kartaan ama aad kala faa'iideysan kartaan hala gaar laakiin hadda hala dhiso ma hayno saas darteed annagana isku tushano weeye marka haddaan dhaqaalaha lahayn dadkii waa haynaa man powerkii maxaan sameynaynaa marka ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa horta inaad kacdo aad shaqayso oo waxa adiga aad haysto aad wax ka samayso horta iyo dhaqaalaha ku yimaadaa marka inaan xooggeena isticmaalno caqligeena isticmaalno saas u sameeyna dadkeena inaan ku aabulno aan rabaa idinkaana u ah hogaankii dadka idinka la rabaa iyo wasaaradihiina inaan ka bilowdaan shaqada